kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay kulanka xasaasiga ah ee dhowaan ka furmaya Airport Hotel. Kulankan ayaa u dhaxeeya xubnaha golaha mustaqbalka waxaana la filayaa in ay ka soo saaraan go'aano waaweyn. Muxuu noqon karaa go'aanadaasi maadaama uu fashil ku soo dhamaaday shirkii shalay dhexmaray ee ka dhacay Villa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha golaha mustaqbalka. yaa iskale mas'uuliyadda fashilkii ku yimid shirkii shalay. Waxaan idiin soo bandhigi doonaa cadeymo iyo sidoo kale arrimo markaasi aad xasaasi u ah oo ka dhex taagan dhinacyada. Haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqatay soo dhawow muuqaalkan like garee siina share garee si dad badan xogteena ay u gaarto. Ramadaan mubaarak. Waxaa goordhow ka furmi doono Airport Hotel ee magaalada Muqdisho shir xasaasi ah oo u dhaxeeya xubnaha golaha mustaqbalka oo ay ku mideysan yihiin madasha samata bixinta iyo sidoo kale madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland. Shirkan ayaa waxa uu daba socdaa shirkii shalay fashilka ku yimid waxaana uu qorshuhu yahay in xubnaha ay ka arrinsadaan mowqif ka mideysan ee ay qaadanayaan iyo go'aanada culculus ee la filayo in dhinacooda uu ka soo baxo iyagoo la filayo in fashilka ku yimid shirkii shalay mas'uuliyadda markaasi ka dambeyso ama cidda mas'uuliyadda qaadanayso in ay tahay Villa Soomaaliya ayaa la fili karaa maadaama shirkii shalay lagu kala kacay oo aysan jirin wax qodob ah oo markaa lagu heshiiyey. Inkastoo xubnaha golaha mustaqbalka ee madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland qaybta ka yihiin ay in muddaha ku sugnaayeen magaalada Muqdisho una joogeen sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafaadka ka taagan dhinaca doorashooyinka iyo dastuurka, haddana dhinaca Villa Soomaaliya ayaa markasta waxa ay ku adkeysanayaan mowqifkoodii hore ee ahaa in doorasho qof iyo cod la aado dastuurkana markaasi la dhammaystiro. Laakiin taa beddelkeeda golaha mucaaradka ah oo golaha mustaqbalka oo ay ku mideysan yihiin mucaaradka iyo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa ay si cad markaasi u diideen qorshaha dowladda federaalka ee ah in doorasho markaasi qof iyo cod ah waddanka uu aado, iyagoona sheegay in xilligan aysan munaasab ahayn taa beddelkeedna laga shaqeeyo sidii doorasho la isla ogol yahay lagu qaban lahaa. Qorshaha hadda socdo wuxuu yahay in dhinacyada ay soo kala saaraan baaqyo kala duwan isla markaana ay caddeeyaan mowqifyadooda maadaama shirka uu xasaasi ahaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Villa Soomaaliya saxaafaduna ay dibajoog ka ahay. Balse hadda waxaa la filayaa in dhinacyada ay ku dhawaaqaan cidda iskale fashilka ku yimid shirka isla markaana ay ka hadlaan. Walow xog hoose aanu helnay ay tilmaamayso in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu isku dayay in uu baajiyo go'aan ka soo bixi lahaa golaha mustaqbalka isla markaana waxa uu qabsaday ilaa maanta in laga warsugo. Waqtiga uu qabsanay waxay ahayd shalay gelinkii dambe markii shirka lagu kala tagay wixii ka dambeeyay ayuu madaxweynaha la xiriiray xubnaha golaha mustaqbalka waxa uuna ka dalbaday in ilaa maalinta Isniinta oo maanta ah la siiyo fursad wax baaq ah yacni wax go'aan ahna aysan ku dhawaaqin. Arrintaas ayaa muuqato in xubnaha golaha mustaqbalka ay markaasi fuliyeen oo wax markaasi war saxaafadeeda isa soo saarin, balse waxa uu qorshuhu yahay in shirka hadda ay ku leeyihiin Airport Hotel inay kaga arrinsadaan mowqifka ay qaadan karaan haddii dhinaca Xasan Sheekh Maxamuud tanaasul ka yimaado ama haddii uu mowqifkiisii uu ku adkaystaba. Waxyaabaha lasla soo qaaday waxaa qayb ka ah sida ay ogaatay warbaahinta durdurka wararka intii shirkii shalay uu socday in madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ay ka hadleen doorashooyinka maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle oo ay sheegeen in maamul goboleedyadaasi la gaaray ama la dhaafay waqtigii doorashada loogu talagalay in lagu qabto isla markaana si degdega doorasho ay u aadaan, iyagoona sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowlad goboleedyadaasi doorashooyinkoodu qabsadaan intaa waxa ka dambeeyana la isugu yimaado sidii doorashada dalka ay u qabsoomi lahayd
waa midda guud ee madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya iyo labada aqalba. balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gaashaanka u daruuray dalabkaas, waxa uuna yidhi arrintan idima qusayso idinka, dowlad goboleedyada idinka ayay idinla mid yihiin, wax faragelina ood ku samayn kartaanna ma jirto, ayuu si cad ugu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee howlahan kale ee inoo yaalla aan ka wada hadalno. waxa uuna si cad u yidhi dowlad goboleedyadaasi aad sheegteen waa Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, in doorashooyinka ka dhacaya ay noqonayaan kuwa doorasho qof iyo cod, inkastoo aysan caddayn sida ay suurtagal ku noqon karto in muddo kooban gudaheed saddexdaasi dowlad goboleed looga qabto doorasho qof iyo cod. ma doorasho golo deegaan sidii tii Muqdisho ka dhacday, mise doorasho guud oo baarlamaan iyo sidoo kale lagu soo xulo ee madaxweynahaba? waa arrimo markaasi aan si toosa loo kala caddayn. balse waxaa xusid mudan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu si cad ugu sheegay xubnahan in arrintaas haba yaraatee aysan kala hadli karin, qorshahana aysan ku jirin, laakiin taa beddelkeed laga wada hadlo midda dowladda federaalk Soomaaliya iyo arrinta dastuurka. xubnaha ayaa ku adkeysanaya in arrintaas ay tahay mid markaasi khusaysa, maadaama golaha uu yahay golo wada tashi, xubnahanna ay qayb ka yihiin dowlad goboleedyada, waa dowladda federaalk ee Soomaaliya ay qayb ka yihiin, islamarkaana ay talo ku leeyihiin arrimaha siyaasadeed ee ka taagan dowlad goboleedyada kale. arrintaas aad ayaa loogu kala fogaaday, saan xogta ku hayno mowqifyo adag ayaa la kala qaatay, umana muuqdo xasan sheekh maxamuud in uu aqbalayo dalabka dowlad goboleedyadan waa Puntland iyo Jubbaland ka yimid ee ku aadan in dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle ay aadaan doorasho. waxa ayna iyagu ku doodayaan in doorasho dadban oo degdeg ah laga qabto deegaanadaas. waa hagaag. sidoo kale saan xogaha ku hayno dowlad goboleedyadan laftirkooda waa Galmudug, Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabelle, waxa ay door bidayaan ama ay danaynayaan in ay qabtaan doorasho dadban oo weliba degdega. iyaga laftirkooda arrintan waxbay ka og yihiin, ama waxaa la isdhihi karaa way is og yihiin dowlad goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland, oo waxa ay leeyihiin doorasho dadban ayaan qabanaynaa oo weliba si degdega ku dhacdo. dhammaan arrimahan waxay muujinayaan marxaladda siyaasadeed ee aad u cakiran ee waddanka haatan uu marayo, balse tanaasulka ugu badan waxaa laga rabaa dhinaca dowladda federaalk Soomaaliya, maadaama waddanka abaaro badan ay ka taagan yihiin. xaaladda siyaasadeed ee waddankana ay cakiran tahay, in furfurnaan laga dareemo dhinaca filla Soomaaliya waa mid aad iyo aad muhiim u ah. haddaba hadaad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan soo dhow muuqaalka laygare siina sheergare si dad badan xogteena ay u gaarto, naguna soo biir oo calaamadda subscribe-ka noo taabo si aad ula socotid wararkeena xiga iyo wixii kasoo kordho shirka haatan ka bilowday Airport Hotel ee magaalada Muqdisho.